waa BBC Afrikada bari saacadu waa 2 duhurnimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo sabti ah bisha Abriil ay tahay 17 sanadka 2021. idaacadan duhurnimo waxay idin soo jeedinaysaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadayada waxay kala yihiin madaxweyne Farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka oo wada hadallo uga socda Afisiyoni. madaxweynaha Jubbaland oo sharci darro ku tilmaamay go'aanka golaha shacabka uu muddo kordhinta ugu sameeyay hay'adaha dawladda federaalka. markaan ka hadalno guddiga doorashooyinka loo yeeray xalimayari taramkeedu uu dhamaaday mandatekoodana lama cusboonaysiin karayo oo adeela jiifiyaana banaanta waa masiibo kale. madaxweyne Deni oo hortagay baarlamaanka Puntland. madaxweynaha Mareykanka oo kordhinaya tirada qaxootiga uu qaabilo dalkaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ee aaska Amir Philip. qodobadaas oo faahfaahsan iyo ciyaarihii ayaad ku dhageysan doontaan idaacadan duhurnimo oo ay soo saareen Cabdulqaadir Yuusuf Cali iyo Samiir Cabdullaahi Jaamac. balse waxa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Axmed Mursal Xuseen. mahadsanid Kawthar. Hindiya ayaa maalintii saddexaad ee xiriir ah diiwaan gelisay tiradii ugu badnayd ee kiisaska fayraska corona. Ra'iisul wasaaraha dalkaas Narendra Modi ayaa dadka Hinduuga ah ugu baaqay in ay xadidaan isku imaanshaha marka ay u dabaaldegayaan munaasabadaha diiniga ah. wuxuuna dadkaasi ka codsaday in ay ka qayb qaataan yareynta faafitaanka cudurka. xukuumadda Thailand ayaa sheegtay in hogaamiyaha militariga Myanmar Min Aung Hlaing uu toddobaadka dambe ka qayb geli doono shir madaxeed degdeg ah. kulanka urur goboleedka Asian ayaa ka dhici doona magaalada Jakarta ee dalka Indonesia. dalalka dariska la ah Myanmar ayaa hormuud u ah dadaalo lagu dardargelinayo in hogaamiyaasha militariga iyo mucaaradku ay wada hadlaan si qalalaasaha halkaasi ka taagan loo soo afjaro. dalka Myanmar ayaa waxaa si maalinle ah uga socda dibadbaxyo lagu dalbanayo in dimuqraadiyaddii dib loo soo celiyo. dibadbax ka dhacay magaalada Yangon ayaa ardaydu waxa ay ku sheegeen in ay doonayaan in Myanmar ay yeelato dawlad rayid ah. in ka badan 70 maalmood ayaa laga joogaa xilliga inqilaabka militariga. ilaa haatanna wax wanaag ah inooma tarin sababtoo ah waxay la wareegeen awoodda mana inoo muuqato mustaqbalkeena iyo yoolkeennuba. waxaan rajo weyn ka qabnaa dowlad la tartami karta nidaamka militariga. wixii hadda ka bilowdo waxaan rajaynaynaa in waddankeena uu noqdo dimuqraadiyad federaal ah. Shiinaha ayaa Mareykanka iyo Japan ku eedeeyay in ay khatar ku yihiin xasiloonida qaaradda Aasiya kadib markii madaxweyne Biden uu wada hadal la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Japan. Yoshihide Suga ayaa booqasho rasmi ah ku jooga Washington halkaas oo labada hogaamiyo ay kaga wada hadleen in isku meel ay uga soo wada jeestaan caqabadaha ka imaanaya xukuumadda Beijing. xukuumadda Ruushka ayaa sheegtay in diblomaasi Ukraine u dhashay jamcihii lagu xiray magaalada St. Petersburg. wakaaladda amniga qaranka ee Ruushka ayaa sheegtay in Alexander Sosyuk la qabtay asagoo helaya macluumaad sir ah kadibna la sii daayay. labada dal ayaa waxaa ka dhaxeeya xiisad sii xoogaysanaysa. Ruushkuna waxa uu ciidamadiisa ku daadgureeyay xuduudda dalka Ukraine. ugu dambeyntiina xukuumadda Eritrea ayaa markii ugu horeysay qiratay in ciidamadeedu ay ka qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. safiirka Eritrea oo fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in askartoodu ay haatan halkaasi isaga baxeen. warkiina waa naga intaas. waa hagaag aad baad u mahadsan tahay Axmed Mursal Xuseen ayuu ahaa. wararka caalamka ee BBC-da ayuu nala socodsiinayay markana qaybaha kale ee idaacadeena duhurnimo. door wanaagsan mar kale dhageystayaal aan ku bilaabno madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda wada hadallo kula leh hangarka diyaaradaha ee garoonkii ciidamada cirka Afisiyoni wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho.
shirka oo ah mid albaabada u xiran yihiin ayay labada dhinac uga wada hadlayaan xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo xiisadda ka dhalatay muddo kordhinta labada sano ee loo sameeyay hay'adaha dowladda federaalka ee waqtigoodu dhamaaday. dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo isna dhawaan ku laabtay magaalada Kismaayo kadib markii ay burbureen wadahadaladii Muqdisho ee arrimaha doorashooyinka ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aanka golaha shacabka uu muddo kordhinta ugu sameeyay hay'adaha dowladda federaalka. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee shirka madaxweyne Farmaajo la leeyahay wakiilada beesha caalamka iyo hadalka Axmed Madoobe waxay noo soo koobay wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo hadda toos ugu jira khadka Luzi Live-ka. Ibrahim, adigoo ku bilaabaya shirka Afisioni, maxaa ka soo kordhay wadahadalada madaxweyne Farmaajo iyo safiirada? كوثري شركة برقدي مانتا يوسف بالله وحنا نحمر يا مدحونا محمد عبد الله فرماج وحبنا كتسن دولة دي سيكوه ليان يوكل لك السعودة باش عالم كوحلا قواد هلا يا حالة السياسة دي الصومالية يسبد لدى دعية دور كمال مودي وجود بيسي تضبط كهرة يقولها الشعب كبرلمان كفدرال كا أي مدحلات كهيدها دولة فدرال كوحو قدر المدلة بس سنة يقول شيء مدة لبض السنة لو قبها هي جود قدر شوين كقرات كاين دور الشقة في عادة وقبتان أرنتاسي واحد على مركز فشل ما وده هذا الذي ما goboleedyada iyo madaxda federaalka u dhaxeeyay ee ku saabsanaa sidii heshiis looga gaari lahaa heshiiskii doorashada ee 17 Sebtembar. dabcan beesha caalamku waxay si adag u diiday muddo kordhintaas labada sano ah iyadoo siyaabo kala duwan war-saxaafadeedii ay u soo saareen toddobaadkii hore iyo toddobaadkan bilowgiisiiba ay ku sheegeen inay aqbali doonin muddo kordhintaasi. dabcan wakiilada beesha caalamka ee xalana fadhiya maanta si toos ah oo weji ka weji ah ay madaxweynaha ula wadaagi doonaan walaacooda ku aadan arrintaasi iyo sida aanay aqbali karin in la sameeyo muddo kordhin. waxa ay ku adkaysanayaan in heshiiskii 17 Sebtembar asaas looga dhigo doorasho kasta oo dalku aadayo. dabcan ilaa hadda wax wara oo ka soo baxay madaxtooyada ama beesha caalamka oo shirkaasi ku saabsan ma jirto. ilaa haddana shirkaas albaabada ay u xiran yahay wuuna socdaa Kowtharey. shirka markaan ka soo tagno dhinaca kale isna waxa magaalada Kismaayo ka hadlay madaxweynaha Jubbaland oo soo qaaday arinta khilaafka ka taagan yahay ee muddo kordhinta. bal Ibrahim, haddii aad noo soo koobto nuxurka hadalkiisa maxaa ugu muhiimsanaa? khudbadiisa aad ayay u dheerayd Kowtharey wuxuuna kaga hadlayay hanaanka doorashada iyo khilaafka ka taagnaa muddadii Muqdisho ay ku sugnaayeen oo 40 maalmood ku dhaweyd. wuxuu taariikh u soo qaatay doorashadii 2016 iyo 17 iyo dhibkii laga soo maray. aakhirkiisa wuxuu sheegay in madaxda dawladdu ay ka gows adeegeen fulinta heshiisyadii doorashooyinka dadban ee ay dhinacyadu ku heshiiyeen. waxa uu iska diiday in Jubbaland iyo si gaar ah isagu inay caqabad ku noqdeen gedi socodka doorashada iyo fulinta heshiiskii 17 Sebtembar. wuxuu sheegay in arrimo dhowra ay hor dhigeen dowladda federaalku ay kamid tahay in dib loo eego awoodda hay'adaha dastuuriga ah maadaama waqtigooda ay dhamaadeen. sidoo kale in wax la iska weydiiyay arrinta ciidamada laakiin dowladdu arrintaasi ay diiday. dhinaca kale waxa uu Axmed Madoobe ku tilmaamay arrin aan sharciyad ku fadhiin go'aankii golaha shacabku toddobaadkii hore hay'adaha dowladda federaalka uu muddada 2 sano ah ugu daray. waxaa kaloo khalad idinku filan maadheed waxaa leeyahay baarlamaan baa fadhiistay golaha shacabka waxay ansixiyeen kool waxay yidhaahdeen 17 Sebtembar heshiiskii waa laalay. waxaan soo celinay hay-addii doorashooyinka qaranka xalimeeyay 2 sano waa in waddanka lagu sameeyo. horta waa su-aal sharciyadda baarlamaanku leeyihiin ay ku fadhiyaan waateen ee sharciga noocaas ku ansixinayaan. waa lambarka labaad ee laba aqal bay ahaayeen. markaan 17 Sebtembar gaadhnay Cabdi Xaashi iyo labaduba way isla qaateen oo waxay qaateen inay labada guddoonee labada baarlamaan baa saxeexay heshiisay labada aqal gaareen buu ahaa. maanta heshiiska aqalka baarlamaanku uu gaarayo keligii waa maxay? xagee buu jira? xagee buu ka imanaya? ma u leeyahay awood? markaan ka hadalno guddiga doorashooyinka lala hadlayo loo yeerayo xalimeeyay taramkeedu uu dhamaaday mandatekooduna lama cusboonaysiin karayo. oo hadday la jiifiyaano bannaanta waa masiibo kale. maanta madaxweynaha xilligiisu dhammaaday iyo hay-adaha uu camcamiska ku watahay Soomaaliya god bay ku ridayaan. haddaan maanta la iska qaban waddankaani dib buu u noqonaya meel kale u tegaya.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo xalay ka hadlayay magaalada Kismaayo Kowthar ee magaalada Muqdishona maanta way degan tahay inkastoo xalay xaafadaha qaar gaar ahaan xaafada ka tirsan degmada Hodan ay cabsi ka jirtay kadib markii taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir uu ku laabtay guri uu ka deganaa xaafada Shiir kale taasoo keentay in ay dadka baqdin ka qaadaan in ay suurtagal noqoto in ciidamada dawladdu ay weeraraan laakiin wasiirka amniga gudaha Xasan Xundubay Jimcaale oo xalay waqti dambe hadlayay wuxuu sheegay in aanay dawladdu weerar ku ahayn taliyihii hore ee booliska gobolka guud ahaan xaaladda magaalada maanta caadi ay ahayd noloshuna si caadi ah ay u socotay Kowthar aad baad mahadsantahay Ibrahim kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo khadka toos ugu jiray nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee shirka madaxweyne Farmaajo uu la leeyahay wakiilada beesha caalamka hadalka Axmed Madoobe iyo dabcan xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho hadii qodobka shirkan eego dhageystayaashana dhanka Facebook waxay ka yiraahdeen Said Umar oo jooga Dhuusamareeb waxa uu leeyahay waan bogaadinayaa wadahadallada afisyoon ee uga socdo madaxweyne Farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka waxaana rajaynayaa in kulankan uu furo u noqdo ama uu furo u noqon doono xalinta khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira Maxamed Shaafici isna waxa uu joogaa Caabud Waaqo waxa uu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ee maanta kula shiraya xirada afisyoon ee qaar kamid ah wakiilada beesha caalamka waxba ma soo kordhinayso waxaase loo baahan yahay in madaxda Soomaaliyeed ay si iskooda ah ay u heshiyaan waa tahay waxay ahaayeen qaar kamid ah dhageystayaasha BBC-da ee Facebook markana baarlamaanka Puntland ayaa su'aalo ka weydiinaya madaxweynaha Puntland kulamadii doorashada iyo madaxda waa marxaladaha hadda ee Soomaaliya ay marayso kulankii saaka ka bilaabmay halka ayaa ilaa iyo hadda socda iyadoo warbaahintana aan loo ogolaan inay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka wararkii ugu dambeeyay waxaa la socday oo inoo soo koobaya wariye Axmed Cawil Jaamac madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa baarlamaanka Puntland fadhi ay albaabada u xiran yihiin lale saxaafadda ayaa dibadda looga saaray xubno ka tirsan baarlamaanka oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in madaxweynuhu taariikh dheer oo ku saabsan geedi socodka doorashada lagu muransan yahay oo baarlamaanka uu kala hadlay waxaana su'aalo iyo fikrado soo jeediyay qaar ka mid ah baarlamaanka ilaa iyo hadda xog badan laga hayo arrinta ka socota howlka baarlamaanka waxaase kulankan uu ka mid yahay kulamo uu madaxweyne Dani uu la qaatay siyaasiyiin iyo bulshada rayidka ee Puntland kaasi oo looga tashanayay xaaladda soo siyaaday ee labada sano ee hay'adaha dawladda Soomaaliya ee baarlamaanku ay ugu kordhiyeen kulamadan madaxweyne Dani uu la leeyahay dadka Puntland ayaa ila xogaal ah BBC-da waxay u sheegeen in marka uu soo dhamaado uu war ka soo saari doono arrinta doorashada waxaana la filayaa in ay Puntland ay sheegto mowqifkeeda ku aadan labada sano ee lagu tilmaamay muddo kordhinta Puntland iyo Jubbaland ayaa si aad ah u dhaliilay marar badan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi ay ku tilmaameen in uu sarabin in uu doorasho uu dalku u aado waxaana kulamadan ay ku soo aadayaan xilli baarlamaanka Soomaaliya ay sheegeen in hanaanka doorashada uu noqon doono mid dadweynuhu ay soo codeeyaan 2 sano kadib waxaana si aad ah arrintaas u noqdiyay mucaaradka kuwaas oo ku tilmaamay go'aan aan laga fiirsan Axmed Cawil Jaamac aad buu mahadsan yahay wali halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay warar kale ay noo soo socdo way kamid tahay madaxweynaha Mareykanka oo kordhinaya tirada qaxootiga uu qaabilo dalkaas iyo wararkii ciyaaraha balse markan gelinka dambe maanta waxaa lagu wadaa in Amir Philip oo geeriyooday 9kii bishan lagu aaso qasriga Windsor ee ku yaal deegaanka Berkshire Amir Philip ayaa geeridiisa ka hor codsaday in loo sameeyo munaasabad kooban dawladda UK ayaa ku dhawaaqday in calankeeda ka taagan dhammaan dhismooyinka dawladda hoos loo dhigi doono faafaynta wararkaasi ku saabsan dabcan waa aaska Amir Philip ee maanta dhacaya waxay noo hayo wariyaha BBC-da Mawlid Xaaji Cabdi Mawlid bal inoo waran halkay wax marayaan Kowthar waa mahadsantahay sida sheegtay Prince Philip maanta ayaa la qabanaya munaasabada aaskiisa waxaana ka socotaa qasri boqortooyada ee la yiraahdo Windsor Castle ku yaala magaalada London duleedkeeda si guud arrintu waxay u bilaabanaysaa 12 iyo barka in yar oo markaynu barnaamijka hadda aynu ka baxna kadib waxaana ay soconaysaa oo si rasmi ah wadanka oo dhan gaar ahaan telefishinada looga baahin doonaa 3 galabnimo saacada London marka ay tahay markaasi oo la filayo in daqiiqad loo aamuso wadanka oo dhan looga aamuso Prince Philip
arrimaha ay ku suntan tahay waxaa ka mid ah iyadoo dadkii ka qaybgeli lahaa la yireeyo 30 qofna lagu koobay bacdama waddanka uu ku jiro xayiraado la xiriira COVID-19 laakiin ciidamada ayaa iyagu aagaasi joogi doona iyadoo markaasna amiirka geeriyooday uu si weyn ugu lug lahaa ciidamada isla markaasna dareeska ciidamada hore u soo xirtay taasi ayaa keenaysa ay leeyahay inay ciidamadu qayb weyn ka qaataan ilaa iyo 730 qaybaha kala duwan oo ciidamada una badan kuwa la yiraahdo Royal Navy ayaa xafladda bandhiga ku sameyn doona oo gaadig ciyaarna ku sameyn doona waxa kale oo la filayaa in dhowr madfac la rido iyadoo taana lagu xusayo hadal ka soo baxay aqalka boqortooyada Buckingham Palace ayaa waxaa lagu sheegay in duqa Edinburgh ama Amir Philip oo geeriyooday 9kii bishan April isagoo 9 jira aaskiisa si weyn loogu madli doono looguna muujin doono daacadnimadii uu ahaa boqorada oo hasaygeedii waxaana markaas la leeyahay taas ayaa si weyn waxa ay tahay waxa loo qiimeynayo wad la socotaayo in ka badan 70 sano ayay isqabeen Amir Philip iyo boqorada iyadoo markaan aan ahaydba amiir dhaxal kale oo markaas aabaheed uu joogay marka si weyn markaad u fiiriso aasku ma ahan mid lamid ah askii hore u dhici jiray gaar ahaan kii ugu dambeeyay 2002 dhacay ee boqorada hooyadeed waayo dad badan baa jeedka soo safan jiray oo ubaxay keenay jiray halka soo qayb gali jiray laakiin kan sidaas ma ahan marka arinta COVID-19 ayaa aad u saameynaysa baabuur la Rover oo isagu oo wax ka hindisay ayaa naxashka meedkiisa lagu soo qaadi doonaa halkaasi oo ciidamadu ay markaasi xushmad u muujin doonaan meedkiisa waxaana markaasi kadib la dhigi doonaa goobtii lagu aasi lahaa waa hagaag aad buu mahadsan yahay Mawlid Xaaji Cabdi ayuu ahaa inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee aaska Amir Philip markana madaxweyne Joe Biden ayaa dib u eegis ku sameynaya ama ku sameeyay go'aanka qaxootiga saacado kadib markii uu saxiixay in tirada qaxootiga ee sanad walba loo ogol yahay inay Mareykanka galaan loo daayo intii ay ahayd xilligii Trump Mr Biden ayaa go'aankaas sheegay Jimcihii kadib markii uu tirada qaxootiga ee dalkaasi loo ogol yahay ka dhigay 15,000 oo qof 2 bilood kadib markii uu codsaday in la kordhiyo oo laga dhigo 65,500 oo qof faafaynta warkaasi waxay noo haya Cabdulqaadir Yuusuf Cali wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Biden uu ka walacsan yahay in tiro badan loo ogolaado dalkaasi xilli ay qaxooti badan ku sii qulqulayaan xadka Mareykanka iyo Mexico tirada qaramada midoobay ayaa muujinaysa in ka badan 80 milyan oo qaxooti ah guud ahaan ay ka jiraan dunida iyadoo 85% ka mid ah qaxootigaasi ay martigeliyeen dalalka horumaray aqalka cad ayaa sheegay in amarkii Jimcaha uu dardar gelin doono qaxootiga looga gol leeyahay inay galaan Mareykanka tan iyo October ilaa 2,000 oo qof ayaa loo ogolaaday inay dalkaasi amarkan ayaa sidoo kale bedelaya qaabkii dadka loogu qoondeyn jiray in Mareykanka ay galaan iyadoo muhiimadda la siinayo dadka ka imanaya Afrika bariga dhexe iyo bartamaha Ameerika iyo sidoo kale in la soo afjaro xayiraadii saarnayd dadkii ka imanayay Soomaaliya Suuriya iyo Yemen Biden oo wacad ku maray xilligiisii ololaha inuu kordhin doono tirada qaxootiga ayaa tirada ugu badan ee dalkaasi loo ogolaan doono sanadkii ku koobay ilaa 15,000 tiradaasi oo uu dejiyay madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Donald Trump afhayeen u hadashay aqalka cad oo lagu magacaabo Jen Psaki ayaa sheegtay in amarka madaxweynaha dimuqraadiga uu abuuray jahwareer kadib markii warkaasi carag ku abuuray kooxaha gargaarka iyo xisbiga madaxweynaha qudhiisaba Psaki ayaa sheegtay in amarkii Biden ay Jimcihii looga gol leeyahay in dimuqraadiyadda qaxootiga ee Mareykanka dib loo bilaabo maalmo gudahood waxay intaasi ku dartay in marka sidaasi la sameeyo ay madaxweynaha ka filayaan inuu dejiyo xilli kama dambaysa oo la kordhinayo qaxootiga inta ka harsan sanadkan wixii loo gaaro May 15keeda ma aysan carabaabin tiro inkastoo ay tiri hadafkiisii ugu horeeyay ee 65,000 ahaa waxay u muuqataa mid aan suurtagalayn khudbad uu jeediyay bishii Febraayo ayuu Biden u cad ku maray in tirada uu ka dhigi doono 125,000 muddo sanad gudihiisa ku dhawaad 85,000 oo qaxooti ayaa dib u dejin loogu sameeyay Mareykanka intii lagu guda jiray sanadkii ugu dambeeyay ee madaxtinimadii Barack Obama aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Yuusuf Cali maantana dhanka ciyaaraha hadii aan eegno waxa jira kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League kooxda Newcastle waxay soo dhaweyn doontaa West Ham 2:00 duhurnimo halka kooxda Sheffield ay marti u tahay Wolverhampton ciyaartaas oo soo gali doonto 10:00 ee habeenimo waa tahay dhageystayaal markana barnaamijkii baafinta
baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Faysal Bishaar Aligo iyo Caasha Saciid Xasan. Caasha mahadsanid Aligo. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Zahra Xasan Mire oo joogto Burco waxay baafinaysaa Zakariya Xasan Mire waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Suudaan 2006 haddaba hadii uu maqlay Zakariya Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Zahra Xasan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco. Mahdi Maxamuud Roble oo jooga Boorame waxa uu baafinayaa Kaltuun Maxamuud Daahir waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Ethiopia sanadii 2006 haddaba hadii ayna maqlayso Kaltuun Maxamuud Daahir ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Mahdi Maxamuud Roble ayadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Kinsi Diiriye oo joogto Boorame waxay baafinaysaa Kin Diiriye Cabdirashiid waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Ethiopia 2002 haddaba hadii ayna maqlayso Kin Diiriye ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Kinsi Diiriye ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Ilyas Cabdi Bulaale oo jooga Luqa Town waxa uu baafinayaa Nuur Cabdi Bulaale waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Liibiya sanadii 2012 haddaba hadii uu maqlayo Nuur Cabdi Bulaale ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ilyas Cabdi Bulaale ayadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Idil Axmed Ibrahim oo joogto Boorame waxay baafinaysaa Samsam Axmed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2006 haddaba hadii ayna maqlayso Zamzam Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Idil Axmed ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Maryan Daahir Muuse oo joogta Luqa Town waxay baafinaysaa Sahra Axmed Jibriil waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen sanadii 2009 haddaba hadii ayna maqlayso Sahra Axmed Jibriil ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Maryan Daahir Muuse ayadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Saado Aadan Ciise oo joogto Boorame waxay baafinaysaa Nuuro Aadan Ciise waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Sacuudiga 2004 haddaba hadii ayna maqlayso Nuuro Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Saado Aadan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco. Saalax Cabdi Yunis oo jooga Luqa Village waxa uu baafinayaa Leila Cabdi Yunis waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Liibiya sanadii 2012 haddaba hadii ayna maqlayso Leila Cabdi Yunis ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Saalax Cabdi Yunis ayadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Raxmo Yuusuf oo joogto Boorame waxay baafinaysaa Fayza Yuusuf Caydiid waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Liibiya 2002 haddaba hadii ayna maqlayso Fayza Yuusuf ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Raxmo Yuusuf ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Shiine Aadan Micaad oo joogo Sabo Wanaag waxa uu baafinayaa dadka kala ah Aamina Aadan Micaad iyo Jamiila Aadan Micaad waxa ugu wardambeysay ayagoo ku kala sugan Talyaaniga iyo Suudaan sanadii 2015 haddaba hadii ayna maqlayaan Aamina Aadan Micaad iyo Jamiila Aadan Micaad fadlan warkooda la gaarsiiyo Shiine Aadan Micaad ayadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Cadayaan Cabdiqaadir Maxamed oo joogto Boorame waxay baafinaysaa Shukri Cabdiqaadir waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Djibouti 2000 haddaba hadii ayna maqlayso Shukri Cabdiqaadir ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Ayaan Cabdiqaadir ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Axmed Cusmaan Daahir oo jooga Ceel Sheekh Luuqa waxa uu baafinayaa Jaamac Cusmaan Daahir waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2005 haddaba hadii uu maqlay Jaamac Cusmaan Daahir ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Axmed Cusmaan Daahir ayadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Jamiilo Kayse oo joogto Boorame waxay baafinaysaa Hinda Kayse waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Italiya 2004 haddaba hadii ayna maqlayso Hinda Kayse ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Jamiila Kayse ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Ifrax Daahir Bile oo joogta Ceel Sheekh waxay baafinaysaa Muna Axmed Jaamac waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Eritrea sanadii 2014 haddaba hadii ayna maqlayso Muna Axmed Jaamac ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Ifrax Daahir Bile ayadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Qadra Jaamac Axmed oo joogta Boorame waxay baafinaysaa
nuura jaamac axmed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan liibi 2008 haddaba haddii ayna maqlayso nuura jaamac amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiya khadra jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay buurama. xasan ciise cali oo joogo hargeysa waxa uu baafinayaa maxamed xasan ciise waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan cumaan sanadii 2018 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed xasan ciise amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiya xasan ciise cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hargeysa. naciimo haaruun oo joogto burco waxay baafinaysaa farculus xaaruun waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan kenya 2008 haddaba haddii ayna maqlayso farculus amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo naciimo haaruun iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. cali cabdi fiite oo joogo jarmalka waxa uu baafinayaa maxamed yaasiin xayle maxamed canjeex waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan hargeysa sanadii 1994 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed canjeex amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cali cabdi fiite iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay hargeysa ama uu telefoonka nambarkiisa uu yahay 25 amran guuleed cabdi oo joogto buurama waxay baafinaysaa roodo guuleed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska 2010 haddaba haddii ayna maqlayso roodo guuleed amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo amran guuleed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. aadan jaamac bashiir oo jooga laascaanood waxa uu baafinayaa faarax jaamac bashiir waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo faarax jaamac bashiir amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo aadan jaamac bashiir iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay laascaanood. sacdiyo xuseen aadan oo joogto burco waxay baafinaysaa nasro xuseen aadan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yaman haddaba haddii ayna maqlayso nasro xuseen amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sacdiyo xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. xaawo yuusuf daahir oo joogta laascaanood waxay baafinaysaa rayaan yuusuf daahir waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yaman sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso rayaan yuusuf daahir amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiye xaawo yuusuf daahir iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay laascaanood. zaynab ibraahim muuse oo joogto burco waxay baafinaysaa foosiye ibraahim waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2009 haddaba haddii ayna maqlayso foosiye amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo zaynab iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. muslima nuur maxamed oo joogto burco waxay baafinaysaa filsan nuur maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yaman sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso filsan nuur maxamed amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiye muslimo nuur maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. qadan ciise ismaaciil oo joogto burco waxay baafinaysaa zahra ciise waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan nairobi 2003 haddaba haddii ayna maqlayso zahra ciise amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiye qadan ciise iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. isaaq maxamed cabey oo jooga magaalada ceelwaq kenya waxa uu baafinayaa xaliimo maxamed cabey waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada baydhabo sanadkii 1985 haddaba haddii uuna maqlay amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo isaaq maxamed cabey iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay ceelwaq amaba telefoon nambarkiisa uu yahay eber 733 eber 766 amaba eber 7 eber 61 xaliimo heybe ibraahim oo joogto burco waxay baafinaysaa hindo heybe ibraahim waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan suudaan 2004 haddaba haddii ayna maqlayso hindo heybe amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xaliimo heybe iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. aamine cabdiqani maxamuud oo joogto laascaanood waxay baafinaysaa faadumo cabdiqani maxamuud waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan uganda sanadii 2016 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo cabdiqani maxamuud amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiye aamine cabdiqani maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay laascaanood. hodan baaruud oo joogto burco waxay baafinaysaa deeqa baaruud waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Jabuuti 2007 haddaba haddii ayna maqlayso deeqa baaruud amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hodan baaruud iyadoo wixii waraa loo sii
marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco. yurub maxamuud diiriye oo joogto Burco waxay baafinaysaa Hinde maxamuud diiriye waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Suudaan sanadii 2008 haddaba haddii ay maqlaysay Hinde maxamuud diiriye ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo yurub maxamuud diiriye iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco. Zahro Qaasim Faarax oo joogto Burco waxay baafinaysaa Xalimo Qaasim Faarax waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Liibiya 2010 haddaba haddii ay maqlayso Xalimo Qaasim ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Zahro Qaasim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco. Safiyo Heybe Qaasim oo joogto Burco waxay baafinaysaa Raxma Heybe Qaasim waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Liibiya sanadii 2004 haddaba haddii ay maqlayso Raxma Heybe Qaasim ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Safiyo Heybe Qaasim iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco. baafinta ugu dambeysay waxay naga soo gaartay Maryuun Cabdikariim Cabdi oo joogto Laascaanood waxay baafinaysaa Faadumo Cabdikariim Cabdi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yaman 2013 haddaba haddii ay maqlayso Faadumo Cabdikariim ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Maryuun Cabdikariim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Laascaanood. baafintii maanta waa naga intaa. Aisha iyo Faysal oo imaadsan yihiin idaacadii duhurnimona waa naga intaa. Waniga waa Kawthar Maxamed Cabdullaahi oo idin leh tan iyo kulankeena xiga 5 galabnimo inta ka horeysa dhageystayaal nabadgelyo.